السلام عليكم واسماعيل ابو زيد oo jeclaystay in aan update yar idin soo gudbiyo oo ku saabsan dowladda Mareykanka waxyaabaha laga rajaynayo inay isbedelaan marka uu madaxweynaha Donald Trump qabsado xukunka 20 bisha January ee sanadkan ugu soo foolhaya 2025 sida aad ka war haysaan dabcan waxyaalo badan ayuu ballan qaaday Donald Trump in uu bedelo marka uu soo noqdo oo qaato xafiiska laakiinse waxaan rabay inaan focus gareeyo laba meel oo ah midda immigrationka oo noqosaysa hadanaha inta dadka Soomaaliyeed intiina badan xiiseeya arrimahaas iyo sidoo kale midda ku saabsan dhaqaalaha aan ku bilaabay midda immigrationka laba hadaan u kala qaadno midka legalka ama illegalka labadaas kale midka oo sharciga iyo midka aan sharciga darrada ahayn dabcan waxaan ku bilaabaa midka sharciga hadaa la socotiin tookadii hore oo Trump yimaaday 7 wadan ayuu gabi ahaanba joojiyay inay dalka soo galaan Mareykanka qof kasta oo dhalashada wadamadaas haysto xitaa haduu deganaansho wadan kale haysto wuu u diiday Donald Trump inuu soo galaan waxaana kamid ahay nasiib daro dalka Soomaaliya marka taas wuxuu yiri waan soo celinayaa marka taas waa iska filan karnaa inay noqon doonto maalmaha ugu horeeya oo xafiiska yimaado in uu soo celin doono waxa loo yaqaan jiray Muslim ban ama travel ban wadamada ee qusaysan aan kamid nahay hadaan nahay Soomaaliya midda kale oo arintaas sidoo kale qusaysan waxa waaye oo ilaa hadda socoto waxa waaye hadda uu ku dhawaaqay in sidoo kale uu sameyn doono wax la yiraahdo extreme vetting oo baaritaan xad dhaaf micnaheedu waxa waaye sideedaba qof kasto Mareykanka soo galaya qeyr iyo khasaarabo waxa lagu dhaqmi doonaa baaritaankii hore loo yaqaanay mid ka dheer micnaheedu waxa waaye waxay dheereyn doontaa ama xitaa maxay ahayd viisayaal badan la diidi karaa waqtigii la apply gareynayo sidoo kale wuxuu rabaa inuu sameeyo waxyaabaha la soo wariyay in uu sameyn rabo wadamada oo riskiga wadamada Mareykanka markay yimaadaan dalka ka yimaadaan ee dadka badan overstay sameeyaan viisayaashooda ee waqti kadan ku darsadaan wadamadaasna waa lagu yareyn doonaa viisayaasha la siiyo soo wadamadeena badan Afrikada wadamada iyo sidaas oo kale wadamaha badan oo waxa jira dad ay ka soo galaan ee dadkaas ama isdhiibaan ama waxyaabo kale ama ay overstay sameeyaan dadkaasna nasiib daro waa la galaafan doonaa annagana dabcan waa ku jirnaa mar kastaba midda kale oo maxay ahayd soo socoto ayaa waxay tahay in uu ka taqalusi doono sida waxyaabaha lottery programka iyo waxyaabo noocyadaas oo kale barnaamijyo fara badan oo ay dadka ka faa'iideystaan ayuu sidoo kale hoos u dhigi doonaa tirooyinka dadku soo galo ay kamid yahay also ardayda sidoo kale F1 iyo J1 iyo M1 iyo viisayaasha ardayda ay ku soo galaan sidaas oo kale waxa soo gaari doona sookada horena ay soo gaartay arin qatar oo hoos u dhac dadka marka viisayaasha noocaas ku jooga oo dalka Mareykanka joogana dambiyada yar ay galaan waxa automatically ay noqon doonaan dambiyo sida hore baan ku naqaanay viisayaashooda lagu kansalo sida kaba soo qabo qofka hadii lagu qabto asigoo qamri cabayo ama soo baawur wadaayo loo yaqaan DUI ama driving under influence qamri bas ma aha waxay noqon kartaa xashiishada waxay noqon kartaa daroogooyinka kala noocyadooda kala duwan yahay qofkii lagu qabtaa asigoo gaari wado automatically waa laga kansali doonaa viisa waa sidoo hore u sameyn jiray waxay dhigeen revocation automatic revocation wax loo ayaa lagu soo bin doonaa waa tii hore haddana wuu soo celin rabaa haddaan u soo wareegna dhanka oo illegalka ama dadka oo dabcan darbi kaboodka wuxuu Donald Trump ilaa iyo hadda waxyaabaha aan ognahay waxa waaye gobolada qaar waxay dhahayaan waxay u diyaar garoobayaan in ay rabaan inay cuuriyamiyaan 100% ma diidi karaan inay cuuriyamiyaan dadaalka oo gali doono Donald Trump inuu dadka ku aruuriyo dadaalkaas oo kamid tahay wuxuu u baahanaa dadka in koow la soo xiro macnaha dabcan booliiska ama dadka booliiska oo joogo goboladaas ayay amar ku siiyeen gobolada ka soo horjeedo waa idin sheegay goboladaas waa sida California iyo Oregon iyo gobolada buluuga loo yaqaan gobolada reedka waxay ballan qaadeen intooda badan inay la shaqeyn doonaan ee ayaga u fududeyn doonaan marka hada Texas joogtidoo kale is ilaali oo darbi kabood tahay waan idinku celinayaa dad badan ayaa jira hadii la soo xiriiro oo ka guurayaan gobolada badan aad ka guuri kartaa jaanis ayaad haysataa hadii aadan guureynin xitaa safarada badan iska ilaali ka gudubinta xuduudaha gobolada ama u dhawaanshaha xuduudda dalka Mexico oo kale iska ilaaliya arrimahaas markaan taas uga gudbo marka sidina kale qofkii waxaan u sheegayaa gaaray xilligii oo apply gareyn kari employment authorization document oo wali apply gareynin fadlan degdeji kaasna waxa laga yaabaa inuu Donald Trump ama se joojiyabo ama se dib u dhigo ama se ay dhibaato kugu imaado marka taasna ku dadajiyaan ku dhihi lahay maadaama ay ka soo baxdo Department of Homeland Security ama se
hay-adda oo qaranka maxay ahaatay amniga qaranka midda kale aan rabay inaan idinkugu soo celiyo waxaa waay arrintii waxba ku saabsan dhaqaalaha waxaa dhici doono waxyaabo oo loo adkeysan karin haddii ay dhacaan waxaa la dhaho tariff amase canshuur oo rabo oo leeyahay ilaa iyo 25% ayaan dul saaraha oo yidhi Mexico iyo Canada iyo Shiinaha saddexdaas wadan markii la isku daro 41% ayay sameeyaan micnaha isku tagooda uu yahay inta ay marka dowladda Mareykanka haddii ay ku dhaqaaqdo arrintaas tariffka loo yaqaano amase canshuur dulsaarka waxaa dhici doonta in dhaqaalaha Mareykanka oo hoos u dhaco tan Canada waaba meelaha ugu daran ee Mareykanka aad dhaqaalahooda isugu dhex jiraan waxaa jirta gawaari qaarkood oo qaybna Mareykan lagu soo biyay qaybna Canada lagu soo biyay sidoo kale Mexico waa la mid waxaa jirta kaba soo qabay warshado badan oo loo yaqaan maquiladoras warshadahaas oo la sameeyay xilligii NAFTA amase North American Free Trade Agreement xilligii la dhihi jiray North America hadda ka hor waqooyiga Mareykanka ayaa sameysteen xiriir waxay sameysteen dhaqaalo isdhaafsi wax markaas ayaa warshado fara badan oo Mareykanka ayaa waxay sameeyeen in aysan ku dhameystirin inta wax soo saarkooda qayb kamid ah badanaa inay inta waxyaabaha qaar ka qaadaan ee Mexico iskula soo xirxiraan inta laga qaadaya waxyaabihii dhammaan la isku sameyn lahaa Mexico la iskula soo xirxir maadaama ay raqiis tahay xagga shaqaalaha ay raqiis yihiin wixii oo dhamaaday sida gawaarida electronics qalabkaas dhan ayadoo la dhameystiray la soo celiyo arrintaas labada dalba way caawin jirta maxaa yeelay Mareykankana wuxuu ka faa'iidi jiray cheap labor wax loo yaqaano shaqo raqiis ah Canada maxay ahayd Mexican ayadana waxay ka faa'iidi jireen shaqooyin iyo malaayiin dollar soo gali jirta waxaas hadii la haleeyo dabcan xuduudahaas la xiro waxay keeni kartaa shaqo dhac hoos u dhac shaqo oo yaab leh marka waxaan idin leeyahay waxaan rajaynayaa in arrintaas ay iska tahay booto inta badan laakiin soo arki doona kulli tabaxalahaas ay maraysaa Mareykan